kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Soomaali Barays kusoo dhawaada tabinta maalin qodobada ugu waaweyn ee idin kula wadaagi doono waxa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne xiisada halka ka taagan iyo dagaal cabsi laga qabo inuu ka qarxo u dhaxeeyo dawladda Soomaaliya ciidamada halka geysay iyo sidoo kale beelaha dega gobolkaasi haddaba sababtu halkan ayaa idin kula wadaagi doona siyaasiyiinta iyo sidoo kale mas'uuliyiinta ka soo jeeda beesha xawaadlo oo shir degdeg ah isugu yimid oo ugu baaqay madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhammaada ciidamada u geeyay Beledweyne inuu si degdeg ah uga qaado haddii taasi aysan dhicin waxay sheegeen inay qaadi doonaan tilaabo degdeg ah halkan ayaa idin kula wadaagi doona General Xuud oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhabar jabisay haddaba muxuu yahay go'aankiisa hadda maadaama wali uu ku sugan yahay Muqdisho madaxweynaha hore Hirshabelle Waare oo shaaciyay qorshaha rasmiga ah ee ciidamada uu farmaajo geeyay Beledweyne ka dambayso iyo xogta ra'iisul wasaare Roble oo qorsheynaya inuu xilka qaadis jawaab u ah ciidamadii la geeyay magaalada Beledweyne oo sameeyo wararkii ugu dambeeyay magaalada Beledweyne iyo xiisada halka ka taagan ayaan ku faahfaahin doonaa tabinta maalinimo ee wararka Soomaali Barays ee fadlan daawada muuqaalkan hadduu ku soo gaara si share gareeyo oo saaxiibadaada kale la sii wadaag waad ku mahadsan tahay daawashadaada haddii aynu ku bilowno magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ciidamo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya qaybahooda kala duwan shalay la geeyay waxa ka taagan xiisad xooggan oo markii horeba ka taagneed oo laga soo horjeeday maamulka Hirshabelle ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ayaa la sheegay in ujeedka ugu weyn ay tahay in lagu boobo doorashada kuraasta ugu badan ee Hirshabelle ee taala magaalada Beledweyne oo siyaasiyiin ay qayb ka yihiin Fahad Yaasin Xaaji Daahir ee loo boobo haddaba siyaasiyiinta iyo sidoo kale waxgaradka iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda beelaha gobolka Hiiraan oo beesha xawaadlo ay qayb ka yihiin waxa magaalada Muqdisho oo shir jaraa'id ay ku qabteen oo qayb ka ah wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda xilgaarsiinta iyo siyaasiyiinta beesha xawaadle waxay si kulul uga hadleen ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne wasiirka arrimaha gudaha Muqtaar Xuseen Afrax ayaa sheegay in xukuumadda waxba ka ogeyn ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne isla markaana aan lagala tashan ra'iisul wasaaraha mas'uulna ka ah doorashada xilligan dalka ka socoto ciidamada Beledweyne la geeyay ma ahan arrin la isla ogyahay ra'iisul wasaaraha laguma soo wargelin xukuumadda go'aan kama soo saarin ciidamada la geeyay Beledweyne ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Bare wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in magaalo nabad ah ciidan la geeyay doorasho lagu boobi rabo ayna xaaladda magaalada tahay mid kacsan waana iska difaaci doonaan ayuu ku daray shacabka Hiiraan ciidamada farmaajo u geystay magaaladaasi waxa uu ka dalbaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta inuu tilaabo cad uu ka qaado lana xisaabtaro generaaladii diray ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne mas'uulna ay ka yihiin wixii halkaasi ka dhaco siyaasiga Cabdullaahi Shambalool agaasimihii hore ee NISA ayaa ku eedeeyay farmaajo inuu mas'uul ka yahay ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne isla markaana ujeedku yahay in lagu boobo doorashada isagoo dalbaday in dib loo soo celiyo ciidamadaasi xiisada Beledweyne ayaa aad u kacsan waxaana ka soo horjeesta ciidamada ay geysay filla Soomaaliya siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda beelaha dega gobolkaasi waxaana cabsi laga qaba inuu dagaal oo khasaare geysta halkaas uu ka qarxo dhinaciisa General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo ah hogaamiyaha golaha isku magacaabay kacdoonka gobolka Hiiraan ayaa si adag uga hadlay xiisada ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo ciidamada ay geysay dawladda Soomaaliya General Xuud oo la hadlayay BBC-da ayaa sheegay in la dhabar jabinayo wada hadaladii u yimaadeen magaalada Muqdisho isla markaana ay mas'uuliyadooda qaadi doono madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhammaada ciidamada la geeyay Beledweyne sidoo kale waxa uu sheegay General Xuud haddii aan wax laga bedelin sida ay wax u socdaan in Beledweyne ugu dambeyn ay ka dhici doonto dagaal khasaare geystay isla markaana maalmaha soo socda uu ku soo wajahan yahay si uu tilaabo u qaado waa sidoo xusay General Xuud waxa uu ku baaqay in la xoojiyo wada hadaladii u yimaadeen magaalada Muqdisho oo laga daayay dhabar jabinta xilli la geeyay magaalada Muqdisho ciidamo si gaar ah u tababaran kuma dooska gorgor iyo booliska Haramcad magaalada xiisada ka taagan magaalada Beledweyne ayaana ah mid aad uga sii darayso dhinaca kale madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ay leeyihiin hal ujeedo taas oo ah in lagu boobo kuraasta deegaan doorashadooda ay tahay gobolka Hiiraan sidoo kale Waare ayaa sheegay in qorshaha General Xuud lagu geeyay Muqdisho ay ka qayb tahay boobka doorashada filla Soomaaliya ay qorsheynayso waa nasiib darro aad u weyn in filla Soomaaliya isku diyaariso boob ay ku qabato kuraasta deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Beledweyne taasna ma dhici doonto ayuu yiri madaxweynihii hore ee Hirshabelle Waare oo la hadlayay VOA-da ayaa waxa laga weydiiyay qorshaha General Xuud lagu geeyay Muqdisho wuxuuna yiri aniga waxaan qabaa in mashruuca Xuud uu xamar u joogay ay filla Soomaaliya wadato sababtoo ah tilaabooyinka la qaaday intii uu joogo Muqdisho ayaa laga garan karaa taas oo filla Soomaaliya ay dhabar jabisay madaxweynaha hore Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in la qiyaamay General Xuud taasina ay keeni karto inuu wajigabax kala kulmo dadkiisa
Waare ayaa wax laga weydiiyay waxa uu hogaamiyaha Hirshabelle kala socdo qorshaha ciidamada la geeyo magaalada Beledweyne oo sheegay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed inuu mowqifkiisu cadeeyay oo ciidamadaasi soo dhaweeyay. Xalka waxaan u arkaa maadaama arrinta siyaasiyiinta ay dhaaftay inaysan waxba ka qaban karin isla markaana dhaqanka labada beelood Beledweyne iyo Jowhar arrintaasi loo daayo si loo badbaadiyo wada noolaanshaha dadka reer Hirshabelle ayuu yiri madaxweynaha hore Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare. dhankiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa wada qorshe oo tilaabo jawaab ah ciidamada uu madaxweyne Farmaajo geeyay shalay magaalada Beledweyne oo kaga qaadayo saraakiishii ka dambeysay sida aynu xogta ku helnay. Tilaabooyinkan uu qorsheynayo Rooble ayaa waxa ugu weyn inuu isbedel ku sameynayo taliyaasha ciidamada si uu gacanta ugu dhigo amniga dalka iyadoo hadda muuqato inuu Farmaajo si buuxda gacanta ugu hayo ciidamada kuwa oo siyaasaddu u adeegsanayo. heshiiskii golaha wadatashiga qaranka shirkii ugu dambeeyay ee Muqdisho lagu kala socday ayaa waxa ku jiray inaysan ciidamada loo adeegsan karin siyaasadda balse waxa cad inuu qodobkaasi uu jabiyo Farmaajo. sida aynu xogta ku helnay Rooble ayaa qorsheynaya in shirka golaha wasiirada toddobaadkan lagu bedelo taliyaasha ciidamada qaarkood iyadoo golaha wasiirada ay awood u leeyihiin soo jeedinta isbedelka ciidamada. qorshaha ra'iisul wasaare Rooble waxa xalay tusmeeyay wasiirka arrimaha gudaha Generaal Mukhtaar oo sheegay inaysan xukuumadda wax warar ka hayn isla markaana ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne ay yihiin kuwa dhibaato horseedi karo. waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumadda ay go'aan ka soo saari doonto xiisadda magaalada Beledweyne qorshaha ka dambeeyay ciidamada la geeyay isla markaana ay qaadi doonaan tilaabo ka dhana. Rooble ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka cagajiidaya iskuna dayay inuu xilka ka qaado taliyaasha ciidamada isagoona u arkay mid meel xun gaarsiin karta dagaalka kala dhaxeeya madaxweyne Farmaajo. hase yeeshee waxa hadda cadaatay inuusan ka fursan karin. Farmaajo ayaa hore ciidamo ugu adeegsaday inuu ku boobo doorashada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed waxaana ciidamada Beledweyne la geeyo qorshahoodu yahay in lagu boobo kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee taala magaaladaasi. sida aynu xogta ku helnay Rooble ayaa sidoo kale qaadi kara tilaabooyin kale oo ka baxsan isbedelka taliyaasha ciidamada inkastoo aan wax faahfaahin oo badan aan laga haynin. siyaasiyiinta mas'uuliyiinta iyo waxgaradka kale ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa inta badan la safar ra'iisul wasaare Rooble aadna uga soo horjeeda ciidamada ay geysay dowladda Soomaaliya ee ka amar qaadanaya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday magaalada Beledweyne kuwaas oo sheegeen inay ujeedka ugu weyn ay tahay inaysan ka shaqeynayn nabadda Beledweyne balse lagu boobayo doorashada 25 kursi oo kuwa ugu badan ee doorashada Hirshabelle oo lagu qaban doono Beledweyne. cali guudlaaw oo dhankiisa xiisad xooggan ay ka haysatay imaatanka Beledweyne ayaa la qorsheynayay in maalmaha soo aadan uu gaaro waxaana cabsi laga qabay inuu dagaal uu ka qarxa ku salaysan habbeeleed oo ciidamadii halka iska abaabulay ciidanka dowladda Soomaaliya ay geysay dhexmaro. balse siyaasiyiinta waxgaradka ka soo jeeda Hiiraan ayaa dusha ka saaraya wixii ka dhacay mas'uuliyadooda inay qaadi doono madaxweynaha madaxweynaadkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddaba wixii warar ay ku soo kordha saaxiibayaal dib ayaad in kala soo socodsiin doonaa. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan ku soo biira page-keena Somali Barays YouTube-keena sidoo kale booqo subscribe-ka noo saar. mahadsanidin.